السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي فردوسا محمد يوسف تخصصي هو تطبيق administration. إمام عالم باريستان سمينا tartanka shirkadaha internetka oo kala duwan isku dhacday. Kulmeerayay buuga cilmi baaristaan Fardowsa Mohamed Yusuf. Dib u weyn ee cilmi baaristaan tartanka internetka oo kala duwan isku dhacday. Baaristaan waxay anfacaysaa shirkadaha internetka iyo qof walba oo daneynaya in uu ka ogaado tayada adeega internetka. Sidoo kale waxay anfacaysaa dadka mustaqbalka ee ay sameeyaan cilmi baaris iyo isticmaalka cilmi baaristaan waxaa u daliilay markii aan arkay in ay liidato tayada adeega internetka iyadoo ay jiraan shirkado badan oo bixinta adeega internetka. Haddii maqaal aan qoray sanadii 2019 kaasoo si gaar ah loogu eegay isbeddelka isgaarsiinta adeega internetka. Waxaa kaloo jiray cilmi baaris ay qabto jaamacadda Tartanka sanadii 2018 cilmi baaristaas oo ciwaankeedu ahaa saameynta uu ku leeyahay shirkadaha isgaarsiinta ee bulsho. Nooca cilmi baarista aan sameeyay ayaa waraysi iyo su'aalo cilmi baaristaan waxaa galay waqti iyo juhdi badan. Ugu horreyn waxaa sameeyay in aan raadiyo cilmi baaris horey loo qoray. Sidoo kale waxaa sameeyay in aan helay goobaha ay khusayso cilmi baarista sida shirkadaha iyo adeega internetka. Sidoo kale waxaa la kulmay aqoon-yahano. Sidoo kale waxaa la kulmay dad u leh aqoon mawduucan. Waxaana ka mid ahaa qof kasoo shaqeeya wasaaradda isgaarsiinta, isticmaalayaasha adeega internetka, aqoon-yahan suuqgeynta. Waxaa ogaaday in ay saameyn isku leeyihiin tartanka iyo tayada adeega. Natiijada ayaa ah in ay yartahay maalgelinta shirkadaha ay maalgeliyaan bixinta adeega internetka, taasoo ay sabab u tahay shirkadaha oo iska bixiya adeegyo kala duwan. Si wax laga fahmo tartanka xiriirka u dhexeeya tartanka internetka iyo tayada adeega oo liidata. Ugu horreyn waxaa u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala. Marka xigta waxaa u mahadcelinayaa dhammaan macallimiinta jaamacadda Injiil oo sheegay. Sidoo kale waxaa u mahadcelinayaa Fardowsa Mohamed Yusuf oo iga qayb qaatay taageeradiisa. La-aantiisa Allah isugu uu garman qoraxay masuuliyadda. Sidoo kale waxaa u mahadcelinayaa waalidiinteeda qaaliga ah oo qeyb ka qaatay fursadda buugga. Sidoo kale waxaa u mahadcelinayaa walaalayada qaaliga ah oo ugu dhiirigeliya fursadda buugga iyo in aan dhageysto. Ugu dambeyn waxaa u mahadcelinayaa dhammaan ardayda galaaska B ee dhigtay.